waxaan halkan uga hadlayaa maanta laba qodob oo kala ah shirkii wada tashiga madasha qaran xaguu ku dambeeyay. qodobkayga labaadna waa shir ay isugu yimaadeen madaxda dalka Masar iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Eritrea ay ku kulmeen magaalada Asmara. waxay tahay ujeedada iyo kulankoodaas arrimo aad u fara badan ayaan kaga falanqoon doonaa arrinta, laakiin qodobkayga hore aan bal ku hormaro xaguu ku dambeeyay shirkii wada tashiga madasha qaran ee runtii waxa ka furmay magaalada Muqdisho isagoo aan wali wax warmurtiyada wax go'aama iyadoo loo gaarin runtii lagu kala dhaqaaqay. marka wuxuu ku egyahay ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay inuu shirka wali socdo. waxaan la soconaa in madaxdii kale madaxweynihii Jubbaland inuu waxa wada tashi iyo arrimo uu aaday Jubbaland. cali guudlaa waxaan la soconaa in sanad guridiisii shanaad uu ka qayb galay xafladiisii. qorqor waxaan la soconaa inuu ka qayb galay daahfurka dekada Hobyo. marka arrimahaas oo dhan waa wax noo muuqda oo media aan ka wada aragnay, laakiin maxay tahay wararka iyo waxyaabaha suuqa la saddex maraayo maxaa ka soo qaadan karnaa? waxyaabo aad u qaldan baa suuqa la saddex maraayo oo leeyahay Axmedow baa ka baxay waa la xirayaa intuu soo bixin waxyaabo qaarkood. marka runtii waxaan la soconaa in hadalkii ra'iisul wasaaraha in shirkaas la isugu soo laabanayo uusan wali dhamaan, laakiin waxa waaye muddo 5 maalmood kadib la isugu soo laabanayo. marka intaas ayaan ku soo koobaynaa oo runtii waxa waaye 5 maalmood kadib la isugu soo laabanayo, laakiin falanqeyn haddaan ka hadalno Axmedow sida aan naqaano wax badan ayuu waxa waaye mataqaanaa soo maamulaya Jubbaland. wax badan ayuu waxa waaye runtii doorashooyin noocii doontaba ahaatee uu ka qabtay magaaladaas. marka wax ilaa hadda siduu shirka uga baxay wax wali martiyada uu ka soo saaray ilaa hadda lama hayo. wax hadal oo runtii waxa waaye uu ku qaadacay ama uu opposition uu kaga yahay shirkii iyo wixii dhacayna waxa waaye sooma uusan saarin, laakiinse waxa uu yiri waxa ka maqan Puntland iyo SSC waan xaq u leeyahay. markii meeshii waxa waaye wada ogoleed ayaa la yiraahdaa. waxaan runtii waxa shirka socda maamul goboleedyada Soomaaliya waa inay noqotaa wada ogoleed. wada ogol maaha waxa waaye mataqaanaa kooram ma ahan oo waxa la leeyahay 3 baa joogta 2 maqan 5 baa maqan kan baa jooga ma ahan. waa wada ogol iyadoo la wada dhan yahay maamuladii waxa waaye in loo wada dhan yahay. mid hadduu ka maqan yahay markii masiirkii ummadda uu matalo meeshii hadday ka maqan tahay cid haba yaraatay. marka waa qodob sax ayuu ka hadlay Axmedow. ka bixitaankiisiina kuma salaysna in hadda waxa waaye mataqaanaa waxa waa qodob iyo qaadacaad iyo arrimo noocaas uu kaga hadlay, laakiinse wuxuu qaadacay inuu wuxuu diiday in waxa waa shirkaasi uu saas u yahay u leeyahay. laakiin dad badan maxay warar siyaasadeed isla dhex marayaan. Axmedow wuxuu leeyahay waxa waaye anaga doorasho ayaan qabanaya oo doorasho dadban ah. dowladda federaalkana waxay leedahay waxaan qabanaynaa doorasho one vote oo hal sano ayaan idinku kordhinaynaa. marka halka sano hal isugu kordhiyo, laakiinse waxa su'aasha ka taagan tahay hal sano ma lagu soo diyaarin karaa doorasho hal qof iyo hal cod ah? doorasho sideedaba waxa waa falanqeyn dheer ayay u baahan tahay oo one man one vote ama one person one vote yaan runtii waxa dumarka ka saaranay. runtii waxa waaye ay ku dhici kartaa taas waxay ku dhici kartaa in la helo tiro koob sax ah. dadkii codeynayay xildhibaanadii waxa waa la dooranayay madaxweynihii u codeynayeen intaba waxa waa in tiro koob la helo oo dadku wax dooranayaan in la helo. marka taasi tud 1 year ama hal sano ma lagu soo diyaarin karaa? waa su'aasha. waa lagu soo diyaarin karaa meelo badan ayay ka dhacday. Puntland ka dhacday, Somaliland ka dhacday doorashooyin degmooyin iyo deegaano aad u fara badan ayay ka dhacday. marka waxa waa in lagu soo diyaarin karaa ayay u muuqataa. waxa la isugu soo noqonaya shirkana waa taas. laakiin Axmed Islaan wuxuu leeyahay Axmedow aniga doorashadeedii November ayaan qabsanayaa. marka arrimahaas ayaa runtii waxa waaye khilaaf iyo runtii dood aad u fara badan keenay oo isla mari waayay, laakiinse in laga heshiiyay oo runtii wada hadal ay ku dhameysteen ayaa runtii waxa waa soo ifbaxay oo kama hor dhacayno. laakiinse waxa waaye muddada 5 maalmood kadib bal markuu waxa waaye madaxweynahana ka soo laabto dalka Eritrea ayaan arki doonaa ra'iisul wasaaraha hadalkiisii iyo runtii waxa ka soo baxay iyo sida Axmed Islaan uu hadda la leeyahay xamar ayuu ku soo laabanaya oo sida la filayo dhawaanaha berri ama berri dab uu imaanaya la leeyahay idana waa arki doonaa. marka qodobkaas intaasaan ugu baxay. marka qodobkayga labaad waxa waaye Abiy Ahmed oo la helay in waxa waaye uu duulaan runtii waxa waaye cirka iyo dhulka iyo dagaalo uu diyaarinayo oo kaga soo horjeedo Soomaaliya iyo Eritrea. waxaa shirka degdeg ah hadda keenay in madaxdii Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay isugu tageen Asmara. waa arrimo noocaas ayaa la leeyahay oo intelligence ayaa la helay. maxay tahay ujeedada? marka Abiy Ahmed waxaa la leeyahay wuxuu ujeedadiisa tahay in uu ku mideeyo shacabkiisii. runtii waxa waaye waa la socotaan Ethiopia xaaladda ay ku jirto waa inay kala jajabtay u kala burburto sidii Yugoslavia ay qarka u saaran tahay. marka saysan taas u dhicin ayuu rabaa inuu caalamka indhahoodii iyo waxa waaye shacabka Ethiopia uu ku sii jeediyo Soomaaliya iyo Eritrea. uu leeyahay waa kaas dagaal sokeey ayaan ku jirnaa oo waxa waaye wadaniyad ayaa runtii waxa waaye Marshall Plan iyo waxyaabo noocaas oo dagaalkaas uu kaga baaqsado. marka
how long ay u socon kartaa marka arrimahan ninkan waxa waaye waxa uu runtii waxa waaye Ethiopia iyo xaaladda ay gashay iyo marxaladda ay gashay iyo waxa waaye sida uu wax u burburiyay oo hadda waliba madaxweynaheedii islaanta ahayd oo runtii waxa waaye intaasoo 5 sano joogtay doorashadeedii iyo waxeedii qaabkeedii kusoo noqon lahayd ka hor yimid waxa waaye ninkii ra'iisul wasaaraha oo runtii waxa waaye kaga dhigay waxa waaye madaxweynaha Ethiopia marka waxa waaye nin foodo socota inuu yahay wala isaga jeedaa laakiinse shirkan hadda ka dhacay Eritrea ay isugu yimaadeen madaxweynaha Masar iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Eritrea oo hoos gareynaya ama marti gareynaya waxa ay u badan tahay inay runtii waxa waa heleen warbixin xasaasi ah oo runtii ninka inuu duulaan soo qaadayo marka sidii laga hortagi lahaa hadduu duulaan soo qaado iyo bariga waxa waa xaaladii ay ka dhici lahayd marka kama hordhaceen asigana waxa waa laba kale waa wararka intelligence-ga laga helay iyo shirkaas waxa ka soo baxa iyo waxa waaye wixii ay murtiyeed ka soo saaran ayaan arki doonaa iyagana